in adeerka raadso ninkii baafinta aan ku qaatay bahal ugu noqday. Assalaamu calaykum soo dhawaada walaalaha qaaliga YouTube-ka naga socotaa waa qoyska qarniga walaashin Shabis markale isku soo noqdo wanaagsan walaalaha qaaliga ay nagu xiran oo nagu soo biiray iyo kuwii hore dhamaantii waa mahadsantihiin waa iska hirgabsaday wax muuqaal shalay ma soo dhigin alxamdulillah laakiin hadda alxamdulillah sidoo kale ka fiicanahay adinkan intii xanuunsan la caafimaad qabtana Allah u siyaadiyo hergab iyo qabow iyo kun xanuuna isku keedarso marka alxamdulillah codkayga ina ka garan kartina oo maleynaya inuu codkii xiran yahay soo dhawaada markaleeto war maanta maxaa idin wadaa waxa la yiri adduunyada joogow maxaa aragti ku laaban maantay waxa idin wadaa wax la yaab leh gabdhihii Soomaaliyeed soo kuwii ayagoo idab leh oo maxaan ku iraahday oo ku ogeydeen sharaf in gabadha hadeen la soo heshiis gurigeeda looga doonto ama ma arkino gabar reer hebel gabar baa u joogto ee noo doona gabar fiican baa reer hebel u joogto inta la dhaho loo doonan jiray waxa soo baxday in gabdhihii ay ayaga dooqooda dalbanayaan gabdhaha Yurub iyo Ameerika jooga maxaa ka qaldan Yurub iyo Ameerika la'aan ma ka jirto sababta looga soo carro nimanka Ameerika jooga iyo nimanka Yurub jooga iyo naagaha xagga jooga laftirkooda oo Soomaaliyeed ee Afrika ugu soo doontaan haday naaga yihiin niman haday niman yihiin naaga maxay tahay waxa soo arkay gabdho Soomaaliyeed oo soo dalbanayo meelaha calaftoonka ka soo hadlaayo adduunka waa la casriyay meelaha calaftoonka ka soo hadlayaan waxay dalbanayaan dooqooda nin noocaas araba ninka waa inuu diin leeyahay waa inuu kan yahay waa inuu naaqabin waa inuu saan yahay nin aad dalbatay oodan aqoon meel ka yimid oodan la sheekaysan oo isdabeecad fahmin oo ma arkino waxa ka dambeeya aadan ogeyn muxuu bari noqon karaa ka cararaysid iyo ka dalbanaysid maada og mid ku fiicnaan doono kii hore inuu ka dalbata ka fiicnaan doono maada og mid kale meesha joogtay nin ku qanciyo ka weys marka nin soo dalbanaysid bahdila u arkaa wiilasha Afrika jooga lagu haayaa u arkaa aniga wiilashana yes isdin naag halkaas joogta markay ku soo dalbato hore ka guursiyo isdin kuma wadayso bahdila marka hore ku guursataba adoo mid Afrika joogto ma arkino joogto oo aad isla qadaan isla quudataan aaba lagu qaatayba mid Afrika jooga adigoo isla qadiino isla quudatiina ba lagu qaatay bal muuqaalka ila soo arka calaf doonaan ahay Yurubaan jooga Ameerikan jooga waxaan ahay gabar Soomaaliyeed waxaan doonayaa wiil dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo Afrika ku nool oo diin leh oo aan wax reer lahayn oo xaas lahayn waxaan doonayaa inuu kaliya ii noqdo waxaas oo dhan la isku helo walaalay aad tirinaysaan waxaad doonaysaan hadhowdii wasiirka cadaaladda inaad ta soo wacdaan aad tiraado cadaalad noo raadi ninkii baafinta aan ku qaatay bahal ugu noqday war gabdhahan ma dad-dhalin haayad baahidan saa'idka waxaan la hadlayaa gabdhaha Yurub iyo Ameerika jooga shakadan cusub maxay ahayd maalmahan ma iska raadsanay macnaha ma iska baafsanay maadan dad lahayn adigu waalid lahayn ma doonaysid miyaa macnaha guur dhadhan leh mise waxaad doonaysaan inaad kaliya beerka kala baxdaan dhalinyarada Soomaaliyeed cadaalad darro ku sameysaan waxa aad sheegaysaan la isku helo walaalay macaani magacayga waa Nabiila ku nool dalka Canada waxaan ahay gabar calaftoona waxaan rabaa wiil dalkii ku nool wax culays ah saar doono waxa ugu baahanahay malaha wax walba oo ana isiin lahay asiga siin doona insha Allah marka waxaan rabaa wiil ahludiin ah calafdoon baan ahay hal ii sheer garay meel kaste Soomaali weyn oo dhan baan leeyahay nin wanaagsan oo dhaqan karan waa inuu cilmi leeyahay hadduu si cilmi lahayn ataa dhib ma lahan war waxa sheegay in la isku helo ma waxa doonaysaa wiil aad social media ka baafisay inta qaato inaad iska jiidatay guri ku xareysato heerta baahidan saa'idka oo maalmaha socota wadanyaro isku badnaada war gabdho idinkuna isu soo saxa waxba qaldan bariyahan waxa filayaa inaad ka soo wada dharagteen wiilkan waxa la lahaa wasiirka cadaaladda ee social media waxyaabaha oo ka hadlana muuqaalkan ka horeeyana waa ku arkay waa waxyaabo jira waligay ma filaynin in la arkaayo gabdho soo dalbanaya ayagu niman waliga ma aragtay
weligaa ma sugaysay inay dhici doonto tan oo kale waa arkay baraha bulshada oo kaleeto sida YouTube oo kaleeto barnaamij calafdoon iyadoo ka socdo laakiin dadka aan la arkaynin oo live intuu qofka galo kadib ay dadka WhatsApp lambarkiisa ka soo wacayaan wiilku oo sheeganayo qof noocaas rabaa gabadha ay sheeganayso waa arki jir laakiin gabdhaha muuqaale iska soo duubeen si bareera ay u dalbanayaan dooqoodi waxayna joogaan kole dibadahaas ani gabdhahan waxaa kula tali lahaa ani ahaan haddii ay baahidaas jirto horta wiilkaa markoo ka hadlayo feeraha ku xanuunaya war gabdhuhu dad ma laha miyaa maxay ta baahida sidaas u daran yaa maxay ta ninkaa iska soo dalbanaysid ma hadhow aa rabtaan inaa ma arkinoo ay tirahdaan bal ninkii aan shala baafinta ku qaato waa igu xumaadee bal wasiirka cadaaladdu cadaalad ii raadi wallahi waa run waa wax lala yaabo gabdhahaas ani ahaan fikirkayga waxaa kula talin lahaa ayagoo reerkooda wiil ka raadsado in adeerkeed ayadoo guursato beri haddii in adeerkeed dibadda geysto tusaale ahaan oo ku xumaaday kala tagaan ciil ma qabto in adeerkeeda keentay haddii dooqeeda ka ciyaartana ay saas dibad ku geysa ama ay saas isku fahmaana haddii dooqeeda ka ciyaartay laakiin waxaan la yaabay oo ama kaag igu noqotay gabar aanba ka xishoonin inay inta barahaas bulshada soo istaagtay ay tiraahdo war aniga gabar guurdoona ahay gabdhahaas ay u qurux badan yihiin ma malay kartid aniga guurdoona ahay nin noocaas rabaa oo wadankii jooga yaa afrikadan kale xataa ma lagu leexanaya qura wadankii jooga rabaa oo kuwa wadankii jooga luqaafo ma yaqaanaan ma lidin dhah yaa nin waa kuwa ilaahay ku wanaajiyo mid wadankii joogo mid meesha oo kasoo cararaysa joogtid kula joogo mid meelahan dhexa jooga waa kuwa ilaahay ku wanaajiyo nin waa nin yaa gabadha magaceeda aan xasuusino Facebook iyo meelahaas waagii hore kasoo hadli jirtay waxay tiraahday nin horay u akhri gadaal u akhri waa nin marka nin hore u akhri gadaal u akhri waa nin abay ama wadankii ka dalba laheeda ama meesha joogta ka guursa laheeda yaa nin waa nin abay adeerka hadoo dhala xataa nin waa nin kow ilaahay ku wanaajiyana wanaagsan yaa guurkana sukeeye ee shisheeye ma kala lahaa marka gabdhaha waxaan leeyahay de magaca nooga ciyaarinina inta meel soo fadhiisateen guurdoonaan nahay calafdoonaan nahay nin noocaas hana loo baafiyo maxay tahay wax gabdhaha laga bartayba maaha gabdhaha sumcadooda ku ciyaaraysaan magaci gabarnimo dilaysaan yaa gabdhihi yaa barqiiska dhigaysaanba yaa maxay tahay gabdhaha maqabow gabaalooy see wax u jiraan intay wax ka qaldan yihiin ani meeshay wax ka qaldan yihiin waa fahmi lahay laade yaa war saas isku dhaama haddii ay gabdhaha caanimo ka raadinayaana hadda wax fiican caan lagu noqdaa yaa wax berri meel kuu galaayo kaa tirmaynin caanimadeeda waxba kuuma noqonayso beri ilmahaaga arkaayo hooyada masaanay qaybta nin doontada u xanuunaysaa lagu leeyahay ee nin u raadinaysa yaa cunugaaga beri social media ka fiirsanaya war nin hebel war nin hala ii raadiyo maxay tahay gabdhahaas waxaa leeyahay de magaci gabdheed magaci gabarnimo ayaa hogsantihiina magaca hanooga dhelinina yaa oo nin ma weynaysaani Facebook kaliya xataa haddaa furatiin boqol nin oo idinku soo darsata arkaysin gabdhahaas quruxda badanaad tihiin ma nin aa weynaysaan dulmiya idinka tahay iyo digasho iyo magac ku dheelis iyo caan raadis marka gabdhaha waxaa leeyahay magaca gabdhaad ma arkino magaca dumarnimo ee aad hugantihiin ha ku dheelinin hadday caanimada ka tahana baasha qosolka ku daro caanimo raadis naga ahayd dhaha laakiin ragga qaar waxay u maleynayaan arrinta inay rurna tahay marka gabdhihi sanadkaas ama horur noqdeenaa la dhahaa markaana laga daayay magac dilka haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed haddee wasiirka cadaaladana waa maqlayseen warkiisa yaa warkiisa hala qaato wasiirka cadaaladda yaa wallaahi wuxuu ka hadlo wiilkaas lagama soo noqdaan waayo hadalka runtuu ka taabtaa ma fahamteen marka warka runtiisa in la taabtana way fiican tahay gabdhaha noocaas wax ku raadinayo qaabkaas qaab ka duwan wax ka raadiye qaabkaas qaab ka duwan wax ku raadiye Facebook kaliya hadaa furtiin saa horinta kuu sheegay baban la-aan ma jirtaba adduunka waxa anta meel usoo fadhiista kaamil usoo hor fadhiista aan u dalbata meesha ma yaalaanba waxaan la weyn banina ka jiro marka ilaahu kii ugu soo aad mid fiican iga dhigdeh ee tartiibtaada ayadoo lagu ogeyn meelahaada maarkino ka qaraabo haddii aad maarkino inta ninku soo xumey nimanka dhan ka didsan tahayna oo nimanka dhan ka didsan tahayna in adeerka raadso isagaba waa nin Allah ku hagaajiyo ma ila fahanteen ama leenahay meesha ka hadlaayo
marka runtii muuqaalkaas marka arkay aniga waxay ila noqotay arrin cajiib ah wax aan filaayay ma ahayn laakiin social media ku jirta maalinba wax cusub ay imaanayo maalinba wax la yaab laha imaanayo maalinba waxa isla talo waxaana ma dhinaaye imaanayo marka social media waa kasii darwaya ayaan taana caanimadii waxa lagu raadinayaa waxba waxay ka daran tahay marka wallahi ilaahay xaqana waafajiyo hada gabdhahan waxaan leeyahay kuwii wasiirka cadaaladda warkiisa wax ku qaato oo kayga wax ku qaato Allah idinka dhigo muuqaalka hadda inta kusoo gaarteen waa mahadsantihiin muuqaalka minta ku kulmeenan waxaa idinkaga tagayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh